kadib labadii carruurta ayaa iyadoo weydiiyey ayayo waa kuma Allah xaguusa jooga ku soo dhawow channelkeena Xamza Joogane subscribe dhaleekana saar si ay ku soo gaadhaan muuqaalo kale oo badan waxaa jiray qoys ka koobnaa 5 qof hooyo aabbo iyo 2 carruur dhaleen iyo aabaha hooyadii xaaladooda nololeed waxa lagu qiyaasay dabaqada hoose yacni faqiiriin ay ahaayeen kadib maalmaha kamida ay wax xanuustay hooyadii dhashay 2 carruurta waxaana loo caaray dhakhtar hase yeeshee dhakhtarku wuxuu sheegay inuu hayo xanuun halis ah markaana loo baahayay in lagu sameeyo qalliinkaas uu ka kacayo lacag aad u badan dabcan aabuhu muhiim lacag saas u badan laakiin salama filaana ayaa nidiis wax ku soo dhacday asxaabta ama saaxiibada oo lacag ka soo maho si hadhow ugu celisid kadib fikradu ku dhaqay waxaanu qabtay xaggaas iyo saaxiibadii kadib muddo markuu maqnaa ayaa hooyadii xanuunsanaysa waxa soo booqday jaarkii sawiro dareemaan xanuunka una muujiyaan inay garabkeeda yihiin kadib qof kasta soo gala wuxuu oranayay ilaahay ku caafiyo qof kasta soo gala ilaahay ayuu magaciisa soo qaadayay kadib labadii carruurta ayaa iyadoo weydiiyey ayayo waa kuma Allah xaguusa jooga ayadii ayaa ku tiri ilaahay wuxuu joogaa samada sare waana keen abuuray inaga kaalmo barina sibahana carruurta yaryar ilaahay ducada ka aqbala kadib labadii carruurta markay ka soo laabteen iskuulkii ayaa waxay waraaq ku qoreen oo raayaan soo socda kaale ilaahay u gargaar hooyaday way xanuunsanaysaa oo xanuunka ka kor qaad aabahayna uu dahay oo kamu soo noqon saaxiibadii ayaday ayaa noo sheegtay in naxariis badantay sibahana carruurta yarka aqbasho ducadooda kadib markay dhameeyeen waxay waraaqdii ku qoreen ciwaankooda iyo magacooda waxaana ka dhigay meesha ku socoto Allah kadib waraaqdii waxay ku wardeen sanduuqa postada kadib waxay istaageen wadada dhinacooda iyagoo sugaya inuu ilaahay is jawaabi doono una soo diri doono ambalaas waqti yar kadib ninkii kala habeen jiray waraaqa ayaa meesha yimi waxaanu arkay waraaqdan ku warantay ku socotay ilaahay kadib waraaqdii ayuu kala furay waanu akhriyay markuu akhriska dhameeyay halkii taagnaa ayuu ku dul ooyay sababtoo ah waraaqda wax ku qornaa eryo naxariis badan oo dareenkaagana taabanaya kadib ninkii waraaqda wuxuu geeyay dadkii kala shaqayn jiray shirkadda iyaguna halkay taagnaayeen ayay ku ooyeen kadib waraaqda waxaa gaadhay ninkii madaxdaana markuu akhriyay halkii taagnaa ayuu ku dul ooyay kadib waxay go'aansadeen inay caawiyaan reerka kadib waxaa gaadhay ambalaasaa soo kaxiyey ninkii shirkadda ka mas'uulka iyo ninkii waraaqa kala shaandheynay waxaa loo jeesteen xaqaas iyo gurigii ciwaan ku qoran kadib silma filaana ayaa labadii yarraa warkeen ambalaas u socota xagga gurigooda kadib si farxad leh ayay u dhaheen waa kan ilaahay ambalaas ayuu noo keenay kadib mar labaad ayay labada nin ooyeen ugu dambeyn waa la soo qaaday hooyadii waxaana la geeyay dhakhtarka ugu dambeyn waa lagu guulaystay qalliinkii kadib labada carruurta ayaa iyadu weydiiyey ayayo aabba maan ogeen inuu ilaahay hooyo caafimaad siin karo waxaana iyadu ku jawaabteen aabiyiin uu ilaaway ilaahay waxaanu ka kalsooni batay saaxiibadii sidaas ayaanu soo dahay haddaba waxyaaba qisadan ka faa'iidna waxaa ka mid ah dhib kasta kugu timaada iyo wax kasta kugu yimaada inaad u carartid xagga ilaahay aad u cararin xagga bilaadanka hore ayay Soomaalidu tiri bukaan badan iyo baahi badan waa la isku nacaa laakiin ilaahay bukaanka badan iyo baahida badan iyo baryada badan uu kugu jeclaanaya saas darteed dhib kasta nagu dhacda waa inaan cararna xagga ilaahay ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri ud'uuni astajib lakum ibarya anuu laga jiibayay sidoo kale daawadana waxaad ka faa'iiday nagu reeb bartoose commentida intaas ay maanta nuugiga barnaamijkan inta ku kulmeyno barnaamijkan waxaan naga tagnaa sidaas oo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamza Joogane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh